بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وناكسن وطبنك بيش جولاي سنتك لبكن لباتن يلح أو كوبعن شن يلباتنك بيش محرم سنتك كن أفر بقول فرتن يسديد تاريخ ذا هجرية ده كسو دوادا مركله يبرامجكي حولشدا وراركا قضبدا ساك برامجك آن دين كوهاينو وحا كمدا iyadoo weli xiisada bariga dhexe cirka ay ku shareeran tahay isla markaasna diyaar garow ciidan uu socdo madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu saaxiga keenay oo uu hakiyay weeraradii ka dhanka ah Iiraan kadib markii Iiraaniyiintu muujiyeen inaysan gacmaha ka laaban doonin tilaba kasta oo military oo lagu soo qaado waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladahan colaadeed xilli ay xoogaysanayaan dadaalada dhanka diblomaasiyadda warbixin sirdoon oo cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in Iiraan ay dejisay qorshe ay ku qaarajinayso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'iil oo walaac weyn ka muujisay nidaamka raadaarka oo Turkiga uu ku rakibay waddanka Suuriya. ciidanka Suudaanna waxay shuruud adag ku xireen qorshe nabadeed oo Mareykanku garahayeen uu ka yahay oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda kala dhaxaysa maleeshiyaadka RSF. dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. jimca mubaarak ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan. saaka waxaynu ka hormaraynaa dalka Suudaan iyadoo dagaaladu weli ay sii socdaan ayaa dhinaca kale waxaa soconaya dadaallo lagu doonayo in xal dhanka diblomaasiyadda lagu gaaro. dowladda militariga uu hogaamiyo ee dalka Suudaan ayaa sheegtay inay si guud u aqbali karto qorshe nabadeed oo uu Mareykanku garahayeen ka yahay balse shardi ay uga dhigayso in ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ay si buuxda uga baxaan dhammaan magaalooyinka ay qabsadeen tan iyo bishii May 2023 sida lagu sheegay dukumeentiyo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters. qorshaha Mareykanka oo dowladda Suudaan la gaarsiiyay 20kii bishii June ayaa soo jeedinaya xabad joojin bini'aadantinimo oo degdeg ah oo soconaysa 90 maalmood. qorshahan ayaa ujeedadiisu ay tahay in loo gogol xaaro wadahadallo lagu gaarayo xabad joojin rasmi ah iyo geedi socod siyaasadeed oo rayidku hogaaminayo kaas oo ugu dambeyn horseeda doorashooyin. sida dukumeentiyada muujinayaan dowladda Suudaan waxay aqbashay inta badan qodobada qorshaha hase yeeshee waxay diiday in ka bixitaanka RSF lagu koobo deegaano cayiman. waxay ku adkaysatay in ciidamada RSF ay ka baxaan dhammaan magaalooyinka ay qabsadeen tan iyo 11kii bishii May ee 2023. qorshuhu wuxuu kaloo soo jeedinayaa in qaramada midoobay ay hogaamiso hanaan lagu taageerayo bixitaan xadidan oo RSF ay ka baxayso deegaano cayiman iyadoo mudnaanta la siinayo waqooyiga Darfur iyo waqooyiga Kordofan. intaa waxaa dheer qorshuhu wuxuu ku baaqayaa dhismaha ciidan qaran oo midaysan hubka dhigis iyo dhaqan celinta dagaalamayaasha iyo hanaan siyaasadeed oo ay hogaaminayaan rayidka kaas oo laga reebayo waxa lagu tilmaamay ikhwaanu muslimiinta iyo xubno ka tirsan kooxaha hubaysan ee lagu eedeeyay tacadiyada. sarkaal sare oo RSF ka tirsan ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in kooxdu ay heshay qorshaha isla markaasna ay soo dhawaysay iyadoo jawaab qoraal ah dirtay balse ma usan bixin faahfaahin dheeraad ah. dagaalka Suudaan oo bilowday bishii Abriil 2023 ayaa sababay barakaca malaayiin qof, gaajo iyo cudurro baahsan.
halka hay'ada caalamiyaha ay ku qiyaaseen in boqolaal kun oo qof ay ku dhinteen colaadda. Khubaro qaramada midoobay ka socota ayaa sidoo kale RSF waxay ku eedeeyeen falal xasuuqa oo ka dhacay gobolka Darfur. waa tahay warkaasi inta aynu kaga gudubno bal markan aynu jaleecno war Israa'iil ka soo baxay oo la xiriira walwal weyn oo laga qabo nidaamka raadarada ee Turkiga uu ku rakabay wadanka Suuriya. warbaahinta Israa'iil ayaa baahisay walaaca Israa'iil ay ka qabto rakibaadda nidaamyadan raadarada ee Turkiga uu soo saaray ee lagu rakibay garoonka dayuuradaha caalamiga ah ee Dimashq, iyadoo sheegtay in qalabkan uu yeelan karo adeegsi military isla markaasna uu saameyn ku yeelan karo isu dheelitirka awoodda gobolka. falanqayn ay daabacday xarunta Alma Center isla markaasna ay soo xigatay warbaahinta Maarif ee Israa'iil laga leeyahay ayaa lagu sheegay in nidaamka HTRS 100 oo ay soo saartay shirkadda difaaca Turkiga ee Aselsan uu awood u leeyahay inuu daboolo masaafo u dhaxaysa 150 ilaa 185 kiiloomitir, taasi oo gaaraysa qaybo ka mid ah Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil. Mas'uuliyiinta Suuriya iyo Turkiga ayaa sheegay in nidaamkan loo keenay ka hor kor u qaadidda badqabka duulimaadka iyo maamulka hawada. hase yeeshee falanqeeyaasha Israa'iil ayaa ku doodaya inuu leeyahay awood laba geesood oo loo adeegsan karo howlgalla military. warbixintu waxay sheegtay in raadaradu leeyihiin tiknoolajiyad casri ah oo lagu doonayo in markaa lagu ogaado dayuuradaha, lagu yareeyo faragelinta deegaanka iyo awood u siinta shaqada xilliyada dagaalka elektroonikada uu jiro. rakibaadda raadaradan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Turkiga iyo Syria ay sii xoojinayaan iskaashiga dhinaca militariga iyo amniga. ciidamada Syria ayaa markii ugu horeysay waxay ka qayb galeen dowlatuska military ee Efes 2026 ee Turkiga, halka Ankara ay ballaarisay taageerada ay siiso ciidamada Syria, waxaana ka mid ah tababar, qorsheyn howlgallo iyo taageero saadka. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in saraakiishoodu si dhow ay ula socdaan xiriirka sii xoogaysanaya ee Ankara iyo Dimashq, iyagoo qiimeynaya saameynta uu ku yeelan karo howlgalka cirka iyo xaaladda amniga gobolka. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa sheegay in Turkiga hadda aanu ahayn khatar military oo degdeg ah, balse Israa'iil ay sii wadi doonto joogitaankeeda gudaha Syria inta ay u aragto khatarta amni inay weli jirto. waa sida hadalka uu u dhigay. hagaag warkaas inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Iiraan iyo Mareykanka. Trump oo u muuqda inuu cagaha dhulka dhigay sida la sheegay, sababtuna ay tahay kadib markii Iiraaniyiintu ay sheegeen inaysan gacmaha ka laaban doonin tilaabo kasta oo military ama daandaansi dalkooda ka dhana. waxaan kaloo eegaynaa warbixinta la xiriirta xogta sirdoonka ee sheegaysa in Iiraan ay qorshaysay in la khaarijiyo madaxweynaha Mareykanka. intaana u gudbin wararkaas iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay aynu ku hakanno qadar xayeysiin ah. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Jimcaha toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. hagaag sheekada way noo soo socotaa warbixinta sirdoon ee sheegaysa in Iiraan ay dejisay qorshe ay kaga takhalusayso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. laakiin waxaynu u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Iiraan iyo Mareykanka. xaaladda ayaa u muuqata inay haatan xasiloon tahay, inkastoo weli ay socdaan abaabul ciidan iyo hadallo xambaarsan dhiillo
isla markaasna lagu soo waramayo diyaar garowga dagaal inuu maray heerka ugu sarreeyay dhanka Iiraan hogaamiyihii sare aaskiisii ayaa laga soo jeestay waxaana Iiraaniintu ay sheegayaan hadda inay diyaar u yihiin si buuxda inay Mareykanka iyo Israa'iil u wajahaan waxaana hadalla adag ka soo yeerayaan mas'uuliyiinta dhanka ciidamada iyo kuwa siyaasadda ee dalka Iiraan maxaa haddaba ugu dambeeya xaaladda iminka saacadan aynu joogna saaka xaggee la kala joogaa dadaallo dhanka diblomaasiyadda oo degdeg ah ayaa socda si loo yareeyo xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan iyadoo labada dhinac ay isdhaafsanayaan hanjabaado weeraro military shabakada wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay oo soo xiganaysa mas'uul Mareykan ah iyo ila ka socda dalalka dhexdhexaadiyaasha ee Qatar, Pakistan, Sacuudiga, Masar iyo Turkiga ayaa waxa ay tabisay in Arbacadii ay soo bilowdeen xiriiro isdaba joog ah oo lala yeeshay Mareykanka iyo Iiraan si loo dejiyo loona qabto wareeg cusub oo wada hadalla farsamo ah iyadoo la dejinayo xaaladda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Qatar ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka amuuraha dibadda ee dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani oo la hadlay dhigiisa Sacuudiga sidoo kalena telefoonno uu kula hadlay wasiirada amuuraha dibadda ee Ammaan, Imaaraadka, Iiraan iyo Turkiga isagoo adkeeyay taageerada Dooxa ee dadaalada lagu xakameynayo xiisadda iyo gaarista heshiis waara oo gobolka u horseeda nabad xiisadda ayaa sii korortay kadib markii Mareykanku uu qaaday weerar xagga cirka oo cusub oo ka dhan ah Iiraan saacado uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku eedeeyay Iiraan inay weerartay maraakiib gooshaysay marinka Hormuz ayna halis gelisay xabad joojinta Iiraan ayaa iyana waxay kaga jawaabtay weeraro ay ku baagsatay dalalka Kuwait iyo Bahrain oo ay ku tilmaamtay in xulafo ay leeyihiin Mareykanka weerarna looga soo qaaday oo ay duqaysay saldhigyada dalalkaasi ku yaal ee Mareykanku uu leeyahay mas'uul Mareykan ayaa telefishinka CNN waxa uu sheegay in wadahadallada farsamada ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran ay weli socdaan iyadoo Mareykanku uu sheegay inuu doonayo xal diblomaasiyadeed oo ka hortaga in Iiraan ay yeelato hub nuclear geesta kale wasiirka amuuraha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa uga digay Mareykanka inuu qaado tillaabooyin military oo hor leh isagoo ku nuuxnuuxsaday in weeraradii ugu dambeeyay ay jabiyeen isaafa garadkii u dhaxeeyay labada dal marinka Hormuz ayaa weli ah goobta ugu weyn ee xiisaddu ay ka taagan tahay Iiraan waxay sheegtay inay ilaalinayso xorriyadda maraakiibta halka taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM uu sheegay inuu tan iyo bishii May fududeeyay socdaalka in ka badan 800 oo markab iyo sidoo kale in halkaasi ay ka gudbaan malaayiin fuusto oo shidaal ah waxaana uu beeniyay sheegashada Iiraan ee ku saabsan gacan ku haynta marin biyoodkaasi wahagaag haddaba arrinta ubuucdeeda waxay tahay Trump waxa leeyahay wuxuu islahaa Iiraaniyiintu waxay ku mashquulsan yihiin aaska mana ka jawaabi doonaan weerarada laakiin Iiraaniyiinta ayadoo malaayiin qof ay ku sugan yihiin goobaha baroordiiqda ayay gantaaladooda rakabteen waxay yiraahdeen haddii aad tilaabo qaado anaguna 5 baan qaadaynaa xaaladdu markay cirkay ku shareeran tahay Mareykanku muxuu leeyahay Iiraan waxay doonaysaa nabad dad badan waxay leeyihiin dhexdhexaadiyaasha ayaa laga yaabaa fariin qaldan inay u gudbinayaan Trump oo ay leeyihiin Iiraan diyaar uma aha dagaal sheekada laakiin cajiibka waxay noqotay Trump waxa lagu yiri weeraradan ugu dambeeya ee maraakiibta lagu qaaday waxa ka dambeeya ciidamada IRGC ama ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan xubno ka tirsan oo heshiiska ka soo horjeeda laakiin waxa leeyahay waxaysan ogeyn Iiraaniyiintu in isku mowqif yihiin si hadalka loo dhigayo hadday siyaasad ahaan lahayd iyo haddii military ay ahaan lahayd waxa leeyahay waxay isku aragti ka yihiin tilaabo kasta oo Mareykanku uu qaado oo loo arkay inay xadgudub ku tahay qodobadii 14 ka koobnaa ee lagu heshiiyey in laga jawaabo xaaladdu markaa kaasay maraysaa Trump hadda waxa leeyahay saaxiib u keenay qorshe kale miyaa socda abaabul miyaa socda طبعا dhaqaaqyo badan oo diyaaradeed baa hawada laga dareemaya waxa la arkayaa diyaarado badan oo kuwa sirdoonka ah diyaaradaha hawada ku siiya shidaalka diyaaradaha kale
oo iyaguna yimid Israa'iil iyo gobolka bariga dhexe dhaqaaqyo military wararka qaar waxay leeyihiin saldhigyadana hadda la weeraray ee ugu dambeeyay waa saldhigyo cusub oo la dhisay dagaalka kadib oo qaarkood laga dhigay in weerarada ay u dul qaadan karaan laakiin maxaa la arkay jugta culus isla markiiba Iiraaniyiintu maxay leeyihiin Mareykan Hormuus go'aan baynu ku leenahay annagu cid naga qaadi kartaana ma jirto Trump nabad diyaar ma u tahay miiska soo fariiso dagaal diyaar ma u tahay kala reebtaan isla tegaynaa halkaasi arrintu maraysa waa sida ay sheegayso warbaahinta Iiraan gaar ahaan wakaaladda wararka ee Maahir dhanka Israa'iil markan aynu eegno halkaasi oo warar ay ka soo kordhayaan warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil ay diyaar u yihiin inay ku biiraan weerarada military ee ka dhanka Iiraan balse ay sugayaan ogolaanshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump telefishinka Kan ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in qaar ka mid ah madaxda Israa'iil ay doonayaan in la cusboonaysiiyo weerarada lagu hayo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan iyadoo la rumaysan yahay in iska horimaadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan ay sii socon doonaan maalmaha soo socda warbixintu ma aysan xusin ilaha xogtan sidoo kale wargeyska The New York Times ayaa ka soo xigtay ila Israa'iiliyiin oo sheegaya in Israa'iil ay danaynayso inay ka qayb qaadato weerar kale oo suurtagal ah laakiin aysan jeclayn dadku inay dib ugu laabtaan xaaladihii shacabka lagu qasbi jiray inay galaan gabaadyada duqimaha laga galo laakiin ma iskeenayso dagaal baan diyaar u ahay iyo dadkayga ma lama rabo inay galaan godadka dhulka hoostiisa isma keenaysa ayaa la leeyahay waa hagaag markan waxaynu eegaynaa warbixinta ku saabsan xog sirdoon oo soo baxday oo sheegaysa in Iiraan ay qorshaysay in la khaarijiyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump telefishinka CNN ee Mareykanka laga leeyahay ayaa baahiyay macluumaad sheegaya in Israa'iil ay la wadaagtay Mareykanka xog sirdoon oo muujinaysa in Iiraan dhawaan ay dejisay qorshe lagu doonayo in lagu khaarijiyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arrin la sheegay inay sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa labada dal xilli heshiiska xabad-joojinta ee gobolka uu wajahayo cadaadis isa soo taraya CNN oo soo xiganaya laba ilo wareed oo xogtan la socda ayaa waxa uu sheegay in digniinta Israa'iil ay gaartay Washington toddobaadkan sida warbixinta xustay hay-adaha sirdoonka Mareykanku waxay toddobaadyadii la soo dhaafay ururiyeen xog la xiriirta suurtagalnimada weerar lagu beegsado Trump balse digniinta Israa'iil ayaa waxa la sheegay inay ahayd mid cusub oo la xiriirtay qorshe gaar ah saraakiil Mareykan ah ayaa CNN u sheegay in warbixinta Israa'iil laga yaabo inay qayb ka tahay dadaal lagu doonayo in saameyn lagu yeesho go'aanada maamulka Trump xilli madaxweynaha Mareykanka uu ka fiirsanayo suurtagalnimada in la kordhiyo cadaadiska military ee ka dhanka ah Iiraan warbixintu waxay sheegtay in Iiraan in ay qorsheynayso qorshahaasi sida Israa'iil laga soo xigtay waxaana la sheegayaa in faahfaahin dheeraad ah aan laga bixin qaabka loo fulinayo laba ilo wareed oo arrinta la socda ayaa waxa ay sheegeen in Mareykanku uusan si madax bannaan u xaqiijin karin xogta Israa'iil isla markaasna aan horay loola socon qorshahan ka hor digniinta laga helay Israa'iil muddo sanad ah Washington waxay ka digaysay in Iiraan ay isku dayi karto inay beegsato Trump iyadoo looga aargudanayo weerarkii uu amray sanadkii 2020 ee lagu dilay General Qasim Soleimani taliyihii ciidanka Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan madaxweyne Trump ayaa arbacadii u sheegay dadka wararka fidiya in Iiraan ay doonayso inay ka takhalusto isagoo intaa ku daray inuu ogaaday in magaciisa uu ku jiro liiska bartilmaameedyada Iiraan wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhawaan arkay liis cusub oo isaga ku tilmaamaya bartilmaameedka koowaad ee isku day kasta oo dila balse ma uusan caddayn halka xogtan ay ka timid CNN ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhamaadka toddobaadkii hore dowladbaxayaal reer Iiraan ah ay ku dhawaaqayeen halkudhegyo kadana Trump intii lagu jiray aaska hogaamiyihii sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo sida warbixintu sheegtay lagu dilay bilowgii dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Israa'iil oo isbahaysanaya iyo Iiraan laba ilo wareed oo ku dhow sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in hay'adaha ammaanku ay la socdaan kooxo kala duwan oo ka hadlay suurtagalnimada weeraro inkastoo weli aan la fulin
ilo wareejada waxa intaa ku dareen in Washington ay ka walacsan tahay in Iran ay bartilmaameedsato saraakiil sarsare oo hadda xilal haya ama kuwa horey xilal uga soo qabtay dowladda Mareykanka. dhinaca kale ilo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay CNN in qaar ka mid ah mas'uuliyiintu ay si taxadar leh u qiimeynayaan xogahan sirdoon ee ka imaanaya Israa'iil iyagoo u arka in warbixinada noocan oo kala mararka qaarkood qayb ay ka tahay in la doonayo in galaangal lagu yeesho siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Iran. halkaas marka maxaa ku jira in galaangal lagu yeesho macnaha waxay isleeyihiin waxaan Israa'iil ba soo dhooftay oo uga faa'iideysanaysa cadaadis Trump marka in baqdin la geliyo la yiraahdo Iran adayba ku soo socota maxaa leeyahay in la doonayo in galaangal lagu yeesho go'aamada Mareykanka. arrintu marka waxa leeyahay waa arrin la doonayo in Trump la yiraahdo Iran aday ku socota inay ku dishaba nimanka iska qabo. waa tahay waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aynoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. jimca